magacayga horta Cabdisaaq Ismaan Cali Muuse weeye halkaan waxaan ku soo gaaray dhakhtar dentista oo ilka abaanahay waxaan ku soo gaareen waxa weeye anoo doonaya maalgelin in lay sameeyo shaqadayda qalab in laygu kordhiyo anoo fursad noocaas doonaya aan barnaamijkan la kulmay waxa igu dhirigelay waxa weeye in aan oo arkayay inay ka fududahay ama fursad ii tahay maadaama aan ahay dhalinyaro oo shaqo bilaabay in ay ii tahay inaan wax hore u sii marin karo shaqadayda fursad iga tahay deymaha ama sistamyada barnaamijka bangiyada kale iga fududahay waxaan ka rajaynayaa tartanka wax fiican qofku markuu tartamo laba mid bay noqonaysaa inuu ama guuleysto oo hadafkiisii gaaro ama inaanu guuleysano aanay noqon deetiisiyo magacaygu Cabdisaaq Ismaan Cali weeye sida idinka muuqata projectorka taariikh in yar haddaan soo koobo businesskaygu wuxuu ku koobay marka horeysa wuxuu ku xiriir la leeyahay waa dental clinic oo anigu waxaan ka soo bartay jaamacad dalka Suudaan khibradayda shaqo 2 sano shaqaynayay sanadna manhal charity foundation baan ka shaqaynayay oo Hargeysa iyo Burco iyo Laascaano iyo Gaalkacyo meelahaas leh markii dambe waxaan isku dayay inaan si private business u sameeyo shaqo cusub oo shaqadeedii ka gudbo shaqaalnimadii muddo sanada baan waxaan ka furay meel Hawa aan Aadam Dental Clinic la dhaho magaalada Baran Dental Clinic baan magaalada Boos ka furaya aniga oo ka faa'iideysanaya magaalada weyn oo bulshada leh oo fursadu shaqadu ay ka badan tahay meelihii aan ka soo shaqayn jiray waana baahida ka jirta deegaanka oo dadku inay baahi badan u qabaan barnaamijka market strategy suuqa fursadaha uu leeyahay ama istaraatiijiyada iga degan waxa weeye inaan target gareeyo dadka patientka waaweyn oo aan u keenay qalab aan meesha soo gaari karin inaan ugu shaqeyno guriyahooda dumarka iyo caruurta oo dadka ugu badan oo baahida u qabto fursadan inaan uga faa'iideyno oo anaguna insha Allah ka faa'iideyno competition tartanka iyo waxa suuqa ka jira iyo waxaan dheerahay waxa weeye suuqa dental clinic badan baa ka jirta dental clinic suuqa ka jira wuxuu u badan yahay ama dalkaba dad technical oo aan academic ahayn aad soo dhaweysay meesha maamulideeda iyo sida systemkeedu shaqadeedu tahay waxa weeye aniga Dr. Cabdisaaq Ismaan oo title kaale academic health science bara magaalada Suudaan ku taal ka soo qalan jabiyay ba clinic staffka kowka ownershipna managerna ka shaqadiina waday one dental assistant bay la shaqeeya iyo hal receptionist qof kaarka diiwaan gelinta dadka u sameynaya iyo hal qof oo cleaner financial summary-ga haddaan u gudbo dhaqaalaha meesha aan rabno aanu ugu soo wareegno qalab baan haysanaa waxaan loogu dar lahaa ama hawsha meesha soo kordhinayno gelaysa waxa weeye 7,800 anaga haysana maalgelintan waxaan codsanaynaa oo hawsheeda ugu soo dadaalay oo ka rajaynaynaa in laga aqbalo $6,000 maalgelin inta ka sokow haddii aan hore u soo qoro sanad xisaabeed sanad baan soo shaqeynay existing business sanad baan soo shaqeynay saan sheegay waxaan amounti waxaan shaqeeyay $7,800 sanadkii hore waxa ka baxay expenses $3,333 iyadoo word oo quick bookana waa hayaa oo ku jira meesha si detail and our service listing waa kan shaqooyinka qabano waxa kamid ah extraction oo saaridii ilkaha ciridka la buufinayo fashion-ka ama ciridka ama yaridka waxa la dhaho laga daaweynayo insha Allah cadayntii ilkaha iyo baalashadoodii shaqadan qabano waxa kamid root canal treatment iyo barnaamijka cusbaan idin sheegayo suuxinta iriga la suuxinayay buuxintii oo noocyadaas leh dahaarkii ilkaha la dahaaray ama la gelinayay kabida ilkaha ama daanka markuu jug ku timaado ama soo dhacdo ciridka in la daaweeyo oral disease ka cudurada afku dhacaan la daaweeyo balance sheet statement-igu asset-ka yani waxaan u hayaa iyaga oo detail ah quick book ahaan marka computer iyo dental furniture oo isku dhan iyo medical drugs aan gadno asoon iyo wax kale magacaygu waa Cabdifataax aadan cige micro dahab ayaan ka socdaa inankana waa Jibriil namu introduce karin markii koobaad waxa weeyaan
marka imika baan is introduce karayna marka waxaan doonaynaa un fikir guud ama su'aalo wixii maxay nooga baxay inaan wax dee follow up questions inaanu ku weydiino haddii ilaahay qadaro oo businesska ku saabsan waxaad xustay in uu businessku ka furan yahay baran oo aad furtay February 2014 inaad February 2014 aad baran ka furtay muddada aad shaqaynaysay 2014 aad maxay furtay baran muddada aad shaqaynaysayna waxa weeyaan income statement-geedii oo dee maxay ahay kooban aad soo bandhigtay maxaa yacni imika kuu kalifay inaad boosaaso markii hore maxaad balaanka ugu darsan inaad boosaaso maxay ahay ka furto ma imika ma expansion baa kii hore miyaa la soo xidhayaa oo waad soo guuraysaa ma waxa weeyaan kana ma expansion oo waxa weeyaan waa ballaadhin oo isagoo ka baran furan yahay baa kana doonaysaa maxay ahay inaad ku kordhisid qorsho muxuu yahay 2015 bishii labaad baan furay waxyaalaha igu kalifay inaan baran ka furo waxa weeye cilmigeegu ama dental medicine wuxuu u baahan yahay qalab yani waa cilmi aan qalab la'aan shaqayn karin marka qalabkanuna wuxuu ku xidhan yahay awooddaada marka basic needski ama waxyaalihii muhiimka ahaa qalab ah baan haystay yani qofku awoodiisa xukunta markii aan shaqeeyayna waxaan arkay inay fursad ii tahay inaan qalabkayga intaan kordhisto magaalada weyn ku soo guuro marka waa soo guurid dental clinic iyo moderate qalabka lagu sameeyo service-ka insha Allah su'aasha waxa la xiriirdaa budgetka total investment-ka aad gelinaysa imika waxaad ku sheegtay 7800 sama waxaad tiri markaa aad waxaad ku contribute garanaysaa 1800 oo cash contribution marka waa cash soba okay marka totalka waxaad u baahan tahay 7800 okay businesska ama imika bilowga aad bilaabayso ganacsigani ma kaliya wuxuu u baahan yahay 7800 inuu ku kaco mise wax jira asad iyo aad haysto adigoo aad ku contribute garanayso hadday jiraan maxaad ku qiimeynaysaa asadkaasi barnaamijkeeda abuurayo ma markaan soo guurayo alaab qalab baan haystay saan idin sheegay waa kordhin qalab iyo shaqadii in la kordhiyo weeye qalabna waa haystay cilmigiina waa haystay position aan ku shaqeeyo iyo qalab iyo baahida aan markaan rabo inaan meeshan soo kordhiyo baan ku xadidaan barnaamijka waxaan ka rajaynayaa qof markuu shaqo qabto daa'iman guul buu rajeeyaa qadarta waa meesheeda laakiin waxaan ku kalsoonahay waxaan jeedin inuu haa wax saxsan waxaan kaloo ku kalsoonahay calafku inuu yahay wax qoran guul baan rajaynayaa insha Allah waxyaalo badan ma ka faa'iiday horta cilmigu male cabir gaara cilmigu waa wax weyn cilmi baan ka bartay